Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada coronavirus oo caalamkii fara badan ku haya kuna fiday wadamo badan oo qaaradda Yurub ka tirsan iyo qaaradda Aasiya. Dalal badan oo qaaradda Yurub ah ayaa shaaciyay inuu gaaray coronavirus markii u horeysay. Caabuqaas dhammaan kiisaskan lagu arkay Yurub waxaa la xiriirinayaa inuu sabab u ahaa Talyaaniga oo xanuunkan markii u horeysay Yurub lagu arkay. Wadamada Australia, Croatia iyo Switzerland ayaa in dadka laga helay cudurkan ee dalkooda ku sugan ahaayeen kuwa ka yimid Talyaaniga, sidoo kale qaarkood ay ka yimaadeen Algeria oo ka tirsan qaaradda Afrika. Sidoo kale qofkii gaarsiiyay qaaradda Latin America khaasatan Brazil ayaa la sheegay inuu ka yimid Talyaaniga. Wadanka Talyaaniga ayaa maalmihii u dambeysay noqday dal ku yaala Yurub oo saameynta ugu xun ku yeeshay caabuqan, iyada oo 400 oo ruux uu ku dhacay gudaha dalkaasi. 11 ruuxna ay u dhinteen. Hase ahaatee, dalalka deriska la ah ayaa sheegay in haddii xuduudaha ay ka xirtaan ay xaaladdu noqon karto mid ka weyn sidii hore. Wasaaradda Caafimaadka dalka Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Golaha Midowga Yurub ayaa go'aan ku qaatay in ay si wadajir ah ula dagaalamaan dhibtan kadib markii ay Talaadadii shir yeesheen. Caabuqan corona ayaa markii u horeysay ku fiday dhinaca waqooyi ee dalka Talyaaniga, balse wuxuu markii dambe u soo gudbay qaybaha kala duwan ee koonfurta iyo bartamaha waddankaasi. Waxa aan ka hadlaynaa waa caabuq aan kala aqoon xuduud iyo xuduud la'aan, ayuu yidhi wasiirka caafimaadka ee Talyaaniga Roberto Berezini. Dhiggiisa dalka Jarmalka Jens Spahn ayaa isaguna sheegay in dalka deriska ay arrintan u wajahayaan si aad iyo aad u dhab ah, laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay in xaaladdu ay meesha ugu xun gaari karto ka hor inta aan la soo gabagabayn. Dalka Australia, lamaane da'yar oo reer Talyaani ah ayaa la xaqiijiyay inay caabuqan qabaan. Saraakiisha ayaa sheegtay in 9 qof oo kale karantiin la geliyay maanta oo Khamiis ah. Switzerland, mas'uuliyiinteeda waxay sheegtay in cudurkan laga helay nin 70 jir ah oo ku sugan magaalada Tisiko ee xadka la wadaagta Talyaaniga. Ninkan ayaa 15kii bishan cudurkan ka soo qaaday magaalada Milan. Nin ku sugan dalka Croatia oo dhawaan ka soo laabtay Talyaaniga ayaa noqday qofkii u horreeyay ee la xaqiijiyay ee Croatia ku nool. Jasiiradda ku taal dalka Spain oo lagu magacaabo Tenerife, ilaa 1000 qof ayaa hodheel lagu xiray kadib markii Doctor Talyaaniga iyo xaaskiisa oo ku sugan hodheelka laga helay iyagana. Barcelona oo laga helay iyadana haweeney qabta cudurkan oo dhawaan ka soo laabatay dalka Talyaaniga. Giriiga ayaa isna xaqiijiyay kiiskii u horreeyay ee caabuqan, waxaana laga helay haweeney 38 jir ah oo ka soo noqotay safar dhawaan ku tagtay Italy. Faransiiska iyo Jarmalka ayaa iyaguna soo tabiyay kiisaskan, waxaana laga helay dadka soo laabtay waqooyiga Talyaaniga. Muxuu yahay sawirka guud ee caalamka iyo cudurkan? Maanta oo Arbaco ah, Hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO ayaa sheegtay in ilaa hadda uu dad gaaraya 80,980 qof ku dhacay. Saraakiishan waddanka Iran oo sheegtay in 24 qof oo dalkaasi ku sugnaayeen ay ku dhinteen halka 400 oo qof kalena laga helay. Waxaa si weyn loo rumaysan yahay in saameynta cudurkani yeeshay dalka Iran ay intaas aad iyo aad uga badan tahay. Walaaca ayaa sii xoogaystay kadib markii caabuqan uu ku dhacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Sidoo kale laga helay goordhoweyd madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi. Sidoo kale lasoo tabiyay in uu cudurkaasi qaaday gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee arrimaha dibadda u qaabilsan. Dalkan Iran ayaa ah dalka labaad ee uu faraha ba'an ku hayo marka laga yimaado Shiinaha. Kuuriyada Koonfureed ayaa maalintii shalay oo Arbaco ahayd soo tabisay in 115 kiis oo caabuqan laga helay waddankaasi. Tirada guud ayaa noqonaysa 1260 ruux, halka 11 ruux oo kalena ay u dhinteen. Waana dalka ugu saameynta badan marka laga yimaado Shiinaha iyo Iran. Sidoo kale waxaa lasoo sheegay in askarigii u horreeyay ee Mareykanka isna caabuqan laga helay ee ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed. Sidoo kale warar goordhow soo baxay ayaa waxay sheegayaan in ciyaartooy ka tirsan horyaalka saddexaad ee Talyaaniga inuu caabuqan qaaday.
Saamaynta caabuqan ayaa aad iyo aad ugu sii badanaysa adduunka. Saamaynta uu adduunka ku yeeshay ayaa mar kasii dambeysa kasii badanaysa, waxaana uu xanuunku kusii dhow yahay inuu faraha ka baxo. Fadlan muuqaalkan hadduu ku qanciyay, like saar, asxaabtaadana la wadaaga, gambaleelka kana furo si uu kugu soo dhacaan wax kasta oo aan soo gudbino. Waa mahadsantihiin dhammaan daawadayaasha sharafta leh.